والله يا شرا يبا ليدي قرادة دي با شرا يبا ليدي قراد جامع قراد اسماعيل يقراد عبد الله قراد سليمان ayaa cari dhulbahanta badagaba garaadadeedii ka joogay dabadeedna waxa la yiri dawladda Soomaaliland waa inay ogolaataa garaadadii inay yimaadaan oo talo xagee ku maqnaayeen oo talo yaa maqnaysiiyay oo talo yaa qaxoontiga ka dhigay oo talo yaa dabajooga ka dhigay garan meeyna dadkoodii inaanay la joogin u baanu garanaynaa dawladda Soomaaliland waxay ogolaatay markaa inay yimaadaan wasiirada halkan joogay arinta loo soo xisaaray waxay ogolaadeen marka ay yimaadeen dhibaatooyin fara badan baa jira waayo fara badan baa adduunyada ka jira dhibaatooyin fara badan oo adduunyada dadka aynu la wadaagnaa ka jira dhibaatooyinka dadka argagixisada iyo howlahaas ka mid ah waxayna ka inoo gaara maaha dhulbahanta wax u gaara maaha adduunyada ka jiraan garaadadii markaa waxay noqotay dawladda Soomaaliland bacdama aanay la nooleyn oo la jirin inay iska ilaaliyaan nabadgelyadooda sida ku imanayaan saraakiisha halka fadhida ee Israa'iil deegaanka uga soo jeeda ayaa loo xisaaray in ay nin walba meesha uu joogo ka soo kaxayaan cida loo xisaaray inay ka soo kaxayaan waa ciidamadii qaranka mid baa reer Burcaan mid baa reer Laascaanood mid baa reer Caarigaaba ciidamada reer Soomaaliland kuma astaysna kuma qiimaysna dagaamada ka yimaadana ciidan qaran bay u yihiin garaadadii deegaankan markii maxaan ku yiraahdaa la keenay iyaguna ay yimaadeen dadkii soo dhaweynayeen waa loo daayay dabadeedna waxa ka Allah meeshii timi in dadkii soo dhaweynayay iyo gaadiidkoodii ay ku xarnayeen carankii Soomaaliya waanu anagu markaa waxaanu garanaynaa in la doonayo dawladda Soomaaliland in lagaga cadhaysiiyo oo buuq la keeno oo calankan joojiyo oo ka sameeyo kaana waa la diiday waxa la yiri calankooda ha wataan siday rabaan ha u socdaan hodelka markii la hormarayayna dee garaad maxaan ku raahday isagii qolada ciidankiisu dee si wanaagsan u marayna wuu jiraa mid xoogaa rasaasa gowda nagaga yara saarayna wuu jiraayo kuwaana lamaanaan hadlina waxaan leeyahay cidayna ha la hadlino ha iska dabaaldegaan baa la yidhiyo innakana cabaar hay naga yara basaqsiiyaan dawladda Soomaaliland waxay ogolaatay cid allaaliya cidda garaadada ku la socotana inay sii dayso waxa soo hoos raacay qolo tiri SSC baanu nahay waxa soo raacay qolo tiri khaatumaanu nahay waxa soo raacay kuwa ururo laga shaki qaba ay ku jiraan dabadeedna waxa soo baxay ilaa iyo maalinta yimaadeen in magaalada maxaan ku raahdaa buuq iyo arbush iyo rabshad iyo dhaqamo laga wada wanaagsan yahay maxaan ku raahdaa ka wada arrinta markaa waxaanu doonaynaa inaan maanta halkan ka cadeyno golahan wasiiradu markuu isu imanayay waayeel iyo waxgarad maxaan ku raahdaa siyaasiyiin deegaankan ka soo jeeda ayaa xukuumadda la kulmay madaxweynaha iyo golaha wasiirada la kulmay wasiiradii halkan joogayna go'aamay qaateen dawladuna way la ogeyd waan waxa lagu qaatay markaas oo ay codsi keeneen ciidamada deegaankan u badanina arrinta nabadgelyada ha galaan ciidanka kalena iyaga support ha u noqdo ha dul joogo dawladda Soomaaliland waa la isla ogolaaday haddii shalayto guutooyin kale ay joogeen oo qaar deegaanka ka tirsanina ay ka mid yihiin haddana qaar deegaanka ka tirsan la geeyada waa ciidankii qaranku waa saraakiisha halkaa fadhidooda ciidanka qaranka ay ka mid yihiinoo taliyaha aaguna uu xukumaa taliyahoodii guud ee ciidamaduna uu jooga arrintaa waxaa kaloo la go'aamiyey